maalin buu nebigu saxaabada ku yidhi way soo jihaad bay ku jireen markaa buu nebigu ku yidhi bilaalow waan yar daalanahay halkanna waan seexanaynaa waa ku nasanaynaa caawe salaada subaxidayna dhaafina noo kici buu ku yidhi bilaalna hurdadii baa la tagtay radia allaahu canhu cadcaadiioo halkaa joogtuu nebigu kacay sala allahu alay wasalam bilaaloo hurdana waa la kiciyey nebigaa kiciyey bilaal maxaa ku helay yaa rasuul allah allaha naftiinni niga qaadee la tegey ayaa taydiina la tegey buu ka yidhi markaa buu nebigu ku yidhi way tukadeen markaasuu yidhi meeshan waa meel khafladeede inaga kiciyo halkaa ciidanka halkaa u rara buu ka yidhi halkaa u guura meel salaad keliya ay ku dhaaftay hadduu nebigu yidhi ciidanku ha ka diga rogto ha ka guuro meel 100 salaadood nagu dhaaftay ka warrama joogitaankayga bal ka warrama dadka muslimka dhul muslimiin intay ka tagaan dhul gaala u socda u guurayna ka warrama hal salaad meelay nebiga iyo saxaabadiisa ku dhaaftay iyagoo khaarijiina oo ilaahay diinkiisa u socda hadduu nebi maxamedu yidhi meeshan khaflad baa inagu haleeshay ee hanbadallo meesha 10 salaadood nagu dhaaftay ka warrama markaas soo inaan ka yar baxno soo maaha waa inaan ilaahay dartii u baxno cid nebi maxamed ka deeqsasan adduunka ma soo marin ghaswaddaas ghaswatu xunayn xoolihii markii mushrikiinta la jebiyey xoolihii gaalada laga soo qaaday ayuu nebigu sidaa u eegay aqrac binu xaabis buu nebigu ku yidhi mee waa kan 100 halaadoo geela siiya buu nebigu ku yidhi cuyaynata binu xusnin mee way kan 200 halaadoo geela isagana siiya buu rasuulku yidhi markaa buu nebigu saxaabadii buu fiiriyey safwaan binu umaya oo markaa weli aanan islaamin ghaswaddaa nebigu la socday baa la yidhi diin iyo caqiidanimo nebiga uma soo raacine waxau nebiga u soo raacay tolnimuu nebiga u soo raacay markaa buu nebigu eegay safwaan binu umaya wuxuu arkaa isagiyo xoolihii gaalada laga soo qaatay 2 buro dhexdooda xoolo buuxiyey oo geelii lo'dii adhigii waxba ka maqnayn wixii mawaashin la odhan jiray isha intuu la raacay kolba dhinac sidaa u eegayoo la yaaban niyaddana ku leh talow xoolaha maad heshida ayaa ku siin lahaa ayuu nebigu ku yidhi yaa abaa wahab markaasuu yidhi labayka yaa muxamed markaa buu nebigu ku yidhi ayucjibuka haadaa labadaa buurood xoolaha dhex socda haddii lagu siin lahaa bal ka warran fiicnayda mase heli karaa markaa buu nebigu ku yidhi huwa laka wamaa fiihi labadaa buurood dhexdooda xoolaha socda cidna kuguma haysatee adigaa iskale kaxaysa buu ka yidhi safwaan binu umaya sidaa intuu nebiga u soo eego wejigiisii iftiin baa ka baxay nebiga wejigiisa iftiin baa ka baxaya hal mar keliya intuu yidhi maa taabat nafsu axadin bimidli haada ilaa nafsu nebiyin naf sidaa wax u bixin kartaa ma jirto hadday jirtana nafta nebi uunbay ku jirtaa ashhadu an laa ilaaha ila allah adiga hortaada waxaan ku qirayaa dadka hortoodana ka markhaati kacayaa dadkana aan u sheegayaa ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaa adiga ilaa ilaahay mooyaane adiguna nebi rasuula inaad tahay baan halkaa ka markhaati kacayaa buu yidhi salaaddii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa la yidhi safwaan binu umaya laanna muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo marka salaada la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxay nebigu iyo saxaabadu sida uu cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamo ninkaa bedishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka deeqsi buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofalihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallim aad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi alumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba
laba beerood dhexdooda isagoo hilin wadadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaax dariiqa iska taala uu qaatay uu gaajoonayay uu ka baday xabad tufaax markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yiri xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuskii kale uu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqeynay uu ku yiri beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiqu ku dhacay waan gaajoonay nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo iska qabteen nuskan cunaha la iga cafiyay buu nuskana la iga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u tegi isaga hadduu kaa cafinay isaga taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuri aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuskayga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ba sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaab ninkani waan guursan buu yiri ma leega cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan Soomaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi haddaba mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa toqolka ku jirta way ku sugaysaa orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlay wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad isor taagtana ku arki mayso haddaad maarataanay aad u qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad kici tiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xooral cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldan oo qol kale ayaa soo galay maya bay ku tiri zawjadaadii baan ahay ii kaale bay ku tiri markaasuu ku yidhi aabbahaa siduu iigu sheegay si ka duwan bay u dhacdee xantu waa xaaraan bay ku tiri aabbahay xaman waxa uu kaa yidhi aniga ii sheeg anaa kuu jawaabiye ma aragto igu yidhi sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragta weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nabi maxamed ka caraysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo quraan iyo hadal annaka nagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka caraysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay uu ka cadhoonayo
umay adeegsanoo lugahayga kumay marin buu yidhi sidaas waa bahay u jeedaa si kale hamoodin bay ku tidhi waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan ka filaynin ayaa arsaaqada ilaahay ka siiyey beertii baa la siiyey gabadhii maalqabeenku u dhalayna waa loo dhisay acdam min haadaa baa la waxa ka sii qiimo badan oo ka sii weyn ninkaa saalix ee weliga ahaa iyo gabadha mutiicadda ahayd ee aabbaheed iyo hooyadeed talada aabbihii hooye ku guuraysay ee taladeeda aanan ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labadaa qof markay isku tageen imaamul acdam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul acdam imaam nucmaan binu thaabit imaam xaniifa imaamka a'immadoo dhan imaamka uu ahaa ee imaam maaligna wax baray ee imaam maaligna imaam shaafici uu wax sii baray shaaficina imaam axmed uu wax sii baray imaamul a'imma baa la yidhahdaa waa imaamul fuqahaa sheekhaasee gabadhii iyo ninkaas saalixa markay isku tageen weligaa ilaahay ee cilmigiisu maanta adduunkao dhan uu buuxiyey ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labadaa qof ka soo dhex saaray war walaalayaal dhallinyaray haddaan ilaahay ka cabsoonno oon ilaahay dhab u rumayno oo daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonaynaa nolosha adduunyada ninkana laynooga dhigo haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay haddaad leedahay nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weyddiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini'aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayoo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاغاتي سمحادو ملين قرآن هذا ليس هذا الكيجي لما قشيه war boqor nuucay adduunka ma jiraan ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكل جري أيا صدا الله صهور مريء بالليل ساعد إلهي ذكري وسمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد حاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وين وقفك مؤمن وقرتا ساعد حاجر إلهي ونوجد يلا دونا يو إن الأدوية أنتو كإيمانو مساجد soo galnoon ilaahay u dhawaano ilaahay la munaajoonno saacadii dhikriga uu sameyn jiray rabbiga la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyay فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكلا قرآن كو شيغي فردهي بقى الهرمرية وحولي فردها هذه هرمريسان وحي إيقام مشغوليا إلهي حسكي بيقام مشغوليا بيولي ذكرقي أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع علي يقول يسوع علي كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي ضاعد إلهي كم مشغوليا نبياد وقورتك قوينيين innaga salaadan tukanaynay
imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadayna weli ma bixinay ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqii ilaahayna wuu ku gutay xaqii bini aadankana wuu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqii ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka qur-aanka ilaahay ku sheegay nebiyullaahi muuse calayhi salaam markuu nebi shucayb adhiga uu jirayey dhul wuxuu adhiga ku raacaya maaragtaane yeyga iyo dhurwaagu ku badan yahay adhiga marka la raacayana lama jiibsan karo geel iyo lo'da marka la raacaya waa la jiibsan karaa laakiin adhijuruhu ma jiibsan karo waayo dacwada ayaa ka dafaysa dhurwaaga ayaa ka qaadanaya muuse calayhi salaam wuu daalay markaa deedna geed buu hoos fadhiistay baa la yidhi isagoo daallan dhinacna uga baqayo dhurwaagu inuu xoolaha ka qaato ka dafo ayuu yar jiibsaday baa yar jiibsaday hurdadii baa la tagtay mar dambe markaa nebi muuse uu baraarugay ushiisii buu waayey ushii ul buu sitaa mogta markaasuu adhigii buu dhex yimid wuxuu arkay dhurwaa ushii nebi muuse haysta calayhi salaam oo adhiga neefka baal martaba u soo weecinayo ku soo celinaya markaasuu nebi muuse yaabuu sidaa u egay waa dhurwaagu adhiga uga baqaya baa u soo ilaalinaya markaasaa lahaatif dhawaaq buu maqlo lagu yidhi kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid yaa muusa sidaan anigu aan doonaya haddaad ii yeesho sidaad adigu aad rabtana annagaan kuu yeelayna baa ilaahay ku yidhi sida rabbi doonayo haddaan yeelno sidaan innaku doonayna ilaahay noo yeelay dad badan baa kula noloshaan maanta fahmi lanahay nolosha haddaad cibaadada ka dayi weyda macaankeega ma fahmi karaysid waad wareeri waad dawakhi adoo wareersanna malakalmowdkaa ku imana ogow laakiin haddii xidhiidhka ilaahay aan adkaysanno oon iimaanka islaamnimada salaada cibaadada diinteennu ay naga noqoto maaragtaane dhaqan oo aysan naga noqon dhegaysi keliya oo diintu dhaqan ay naga noqoto waxaad arkaysaan adduunka dusheedaan janno ku garanaa janno nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisaayey ayagoo maskiidka ka soo wada baxo isgarab socduu nebigu ku yidhi cali ka warran faaduma haddaan kuu dhiso markaa buu sii jeesto uu ka xishooday faaduma waan ku siiyey buu yidhi caroosna waa taysa soo diyaari buu ka yidhi wuu socday inantiisii buu nebigu u tegay faatima aabbo waan ku dhisay dee yaad ii dhistay cali baan kuu dhisay radia allaahu canha way aamustay way xishootay markaabay hadasho aabba ma hadlaa hadal buu ka yidhi dee cali baad ii dhistay haa cali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyaho habeenkii indhaha aad wax ugama arka bay ku tidhi markaa buu nebigu ku yidhi faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummatii silman wa akharuhum cilman wa acdamuhum xilman buu ka yidhi faatimaay ninka aan kuu guriyey waa ninka islaamnimada ummaddeeda ugu soo horreeyey oo ugu soo hor islaamay waana ninka ummaddeeda ugu cilmi badan waana ninka ummaddeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yidhi barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawana waa ku hoynayaa ee diyaargarow buu ka yidhi innaku iminka gabdhaha waxba kuma darnee waxuunbaa ka sugnaa soomaa inta badan soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nebigu inantiisii faatimo markuu dhisayay u raaciyey barkin buu siiyey oo gogol buu siiyey oo weel buu siiyey marka guurkooga u fududaa keena zamankan ee cadaabkaa maaha u fududaa noloshu way fududay
guurka haddii la fudaydiyo bay culimmadu leeyihiin zinada inay dhallinyaradu ku dhacda ayaa adkaan haddii guurka la adkeeyo waxaa la fududeeyey ogow zinadii baa la fududeeyey marka guurka inaan fudaydina diyaar ma u nahay waa sababta keliya bay culimmadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo weliba islaamnimadu ay kaa tahay ficil ku dhaqan inaad ku dhaqanto ood barato ood ku camal fasho waxaad u hilinaysaa nebigaagii calayhi salaatu wasalaam ummu sulaym inankaygii bay nebiga u keentay ku tiri nebiga u adeeg nebiga u khidmee khidmadda nebi maxamed waa khidmaddii diintii ugu leedna nin abu talxa la odhan jiray baa markaas soo shokaansaday iyadii waxay ku tiri maad islaamta markaasuu yidhi may laakiin diin baan haysta anigoo diin baan leh markaa bay ku tiri diintee waan is ognahay miyaanad xishoonayn bay ku tiri adoo nin ah oo ilaahay ragga uu caqli ku deeqay qori gacantaada aad ku qortay inaad baridaa oo baahidaada aad u sheegataa mayna nuqsaan kugu ahayn bay ku tidhi anu gaal ma guursanayn in mushrigee ka dhaqaaji bay ku tidhi markaa iimaankayga ilaalsanaysaa iyo diinteeda uu kolku sii jeestay u yeedhay ku tidhi in aslamta fa innii laa uriidu minka sadaaqan hayrahu haddaad islaami lahayd abu talxow islaamnimada aad soo gasho ayaan meherkayga u qaadan bay ku tidhi soo islaam bay ku tidhi oo gabadh meherkeygii mariinkeygii wixii haweenku ay ku farxaan oo dhan waad og tihiin way jeceshahay waa habeenka keliya gabadhu ay farxad caruuskeedu waxaasoo dhan waxay ka doorbiday inay ninkaa naarta ka badbaadisu noqdo asxaabtii nebi maxamed ragga ugu qiimo badan uu ka mid noqdo isaguna markii dambe marka diinta ilaahay hanu helinno waan ku dheeraadaan u malayn shaa saamixuuni khayr baa inaga muuqda khayrkaana allah inoogu sii wado diintana in sha allah inaan camal fal u bedelo soo diyaar uma nihin sala allahu calaa sayidina maxamed wasalaamu calayh mid baa kuu sheegaya dhegayso nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa lagu yidhi nebi allow salaaddii baa taagan markaa buu nebigu yidhi abubakar ummadda salaadda ha ka bixiyo caaisha radia allaahu canha ayaa tidhi yaa rasuula allah abubakar sidiiq waa nin qalbi jilicsano maqaamkaaga hadduu istaago maaragtaane oohintiisa ayaa ka qaalib noqonaysa qur'aan akhriskiisa oo la fahmi maayaba qur-aankiisa markaa buu nebigu yidhi caaisha aamus buu yidhi adigu abubakar salaadda haynaga bixiya buu rasuulku yidhi abubakar nin xishood badan buu ahaa oo naftiisa dhowra oo mukhlis oo ikhlaaskiisa iyo iimaankiisa ilaashanaya buu ahaa ismu qadimine uu joogaa waxaa lay cumar binu khadaab baa damcay inuu isqadimo markaa buu nebigu qoorta la soo galay masaajidka ila guriga nebigu uu jiifo iyo masjidku isku muuqdaan ma og tahay markuu arkay nebigu cumar oo safkii istaago istawuu leh ayuu nebigu yidhi waya'ba allahu waalmu'minuuna ilaa abaabakar ilaahay iyo mu'miniintu way diideen abubakar oo halkaa jooga nin kale salaadda ummadda inuu ka bixiyaa ilaahayna ogolaan maayo mu'miniintuna ogolaan maayaan buu rasuulku yidhi sidaasuu markaa abubakar uu salaaddii ku galu ummadda kaga bixiyey dhegaysa buu yidhi abaa sufyaanow salaaddu waa camalka aakhiradeeda badbaadinaysa buu yidhi een aakhiro ku badbaadayno ninka aakhiradaydii hoggaan la nooga dhiga camalkaa ku badbaadi lahayn adduunyadana isagoon baana hoggaamin karay buu yidhi cali bin abi aalib salaaddii uu abubakar u tujiyey ummadda nebiga oo nool ayaa laga cabiray nebi maxamed gadaashiisa khilaafada islaamka nin abibakar uga xaqle haba yaraateen ma jiro walaalayaal marka salaadu zamankii nabigeena sal alla alay wasalam haddana abibakar ninka ku xigay xagga salaada salaadu fiicnida cumar binu khadaab buu ahaa taladii ummadda cumar baa qabtay haddana cumar gadaashiisa ninka salaad wanaag ninka salaada wanaag ugu salaad wanaagsanaa ummadda cusmaan buu ahaa cusmaanna maaragtaanay abibakar cumar buu ku xigay uma caliy buu ahaa haddana calina wuxuu ku sii xigay cusmaan waa markay ummaddu ay wanaagsanayd ninba ninka uu ka salaad fiican yahay ayaa talada ummadda loo dhiibanayay cabdillaahi binu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruumuu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليلة تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام
qisiiskii baa ku yidhi ciidanka ninka wata waa nebi maxamed ardaydiisii arday ka mida ha naga dilin nasraaniyadda u bandhig waxli wuxuu diinta ku doorsan karana ha la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota uu sadun can sabiilillaahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nebi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbiguu dul yaallaa halkuu dul yaallaa qalbiga وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من عربك الدنيا الله من ما أدوية لا دافسن كرماها ومن قلبك إيمانك فريستي وين إلهي كنت تعلق صن هو يا بقرك ما كلها تعين النصرانية ده سوا قلي بقرتوية ده نكال بركة بنقصينه مركز وقصلي وعند بقرتوية ده هذا أورد ما يسترون وحبل لقى الريبين iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la ii dhigo oo la igu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallaahi inaana yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata cayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelayo buu yidhi boqorkii baa ku yidhi de waan ku dilaynaa de waaba nin xidhanahay buu yidhi haddaad dilaysaan waa nin xidhanahay ixda alxusnayeyn bay sugayaan iyaku إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكين هلان وإلهي قرقار كيس الله بلن قاد إنه كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوه أركان وحال الله السماية مركا بغر كي أمر وحو كبحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا أي هرتو دي لكيني لبنين ومسلمين تيتو الله سوى قادو إساقون أركايو ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqon nabi ilaahay markaas la qabto labadii basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliido karkaraya loogu tuuray ka waran subhanallah isagii baa markaa la dulkeeno oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii ilaahay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxaad loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dulkeenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dulkeeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi naf kaliya maaha kuman yal nafa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dulkeeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi boqorkii baa yidhi kan dilkiis waxay noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daaya ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa isagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaasuu yidhi hagaag iga dhunko markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa anoo asxaabtii nebi maxamed ka mid ah raggaa ugu sii daynaya soo maahayna waa ka dhunkan ilaa bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixi mayna cajiib asxaabta rasuulka maray soo galeen cumar binu khadaab baa soo dhoweeyey inuu gaal madaxa ka soo dhunkaday ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa cumar ku yidhi cabdulaahi binu xudaafa ha dhunkan ha salaaminoo ha soo dhoweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday إنك أنا هبل دبده وبحي هبل ها دبده وبحي هبل ها يطبل الشنايايو بس كوكو توستي قال لنا لا شقيسو أيا ما أنت مسلمين تهرو مرو أركان قال هذا دول كوكا إنا تجنو أيا ما أنت مسلمين تهرو مرو أركان إياكونا raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday hasalaamin Umar baa yiri barukaadii ha wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata wuxuu iyaka ku soo daayay buu si marka uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بيقولي قف كستو مسلمة وحق أبو عمر إن ما ركتنا عبد الله بن حذافة وماذا حكدون كذو أنا كان كبل أبو يقولي أنا كان كبل أبو إلهي بيكو حنايان إسلام نمد يكو حنايان الضومة وحي النقض إلهي ومسكلة يحي سيدي إلهي دوني مركي يالان سيدي يكون أي دوني ينبع إلهي أدونك ويالان nin qisad maalin iiga sheekeeyey nin dhakhtar oo Jarmana ayaa wadannadaas ayuu airport ayuu markaa diyaarad buu magaalo kale u raacay nin dhalinyaro oo muslima ayaa markaa suuratul kahf qisadaas risaalad yar oo culimadu ay ka qoreen oo tafsiirka quraanka uuna wax kale ayna ku darin oo luqada Jarmalka lagu qoray lagu taabacay ayuu markaa yarkii dadka u qaybinayay dadkii diyaaradda sugayay kuraasada ku fadhiyay ninkan waa nin professor oo dhakhtar oo raga adduunyada xagga dhakhtarnimada ugu aqoon badan buu ku jiraa laana wadanka Jarmalku waa wadanka lagu sheegay la yiraahdo waa wadanka adduunka ugu aqoon badan xagga dhakhtarnimada loo doonto caafimaadka ilaahay baana caafimaadka hayay ilaahay baa wasaaradda caafimaadka lagu oran laakiin wasiirka dhan ee caafimaadku u buka halka waran sheekh wasaaradda caafimaadka wasiirka dhanna u buka nin baa la nagu yiri ninkan wuxuu madax ka yahay hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga markaas ku reerkaaga imsa masiibo ku dhacday wuxuu yiri inankayga weyn baa iga waalan yahayba de baad ka hortagtidaa waxba kama hortagi karo insaanku waa daciif وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquula ninkani laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ilaa wadan ayaa saacado dhan buu soconayay marka markuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaray airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saar aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhaata al-yamin wa dhaata al-shimal dhalinyarada ilaahay baa yidhi marka ay jiifaan marna midigtaan u bedelnaa baa ilaahay yidhi marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ilaa qofku xaggan hadduu u jiifo un xaggan xanuun baa gaadhaya jirkiisa waa qallibnaa baa ilaahay yidhi laakiin ayga ilaahay markuu ka warramayay wuxuu yidhi وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل ايغو اسغو لما قلبايو ايغو سدو سخدا واد رagteen de sidaas uu sexdaa isagu aygu boggan dhulka dhiga wuxuu yiri marka ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jiifaana waxa la quraankan uu sheegaya in la qallibayo asxaabul kahf oo marra xaggan loo rogay marra xaggan loo rogay laakiin ayga maxaa loo rogi waayay buu waa inaan cilmiga baaraa markuu wadankiisii tagay oo dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiibu baaray oo qoon wuxuu baaray marka dubkii bini aadanka ilaa waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadood dubka bini aadanku dhulka dulooli kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray bogiisi markaasuu soo saaray haddana ma aragtaan inta sane aygu bogiisu oo dhulka dulooli kara lagu hayn karo sanawaad qurundan markaasuu yiri علميا نينكا كيني بانو باهانahay buu adduunka waa ayo markaas muslimiin buu raadiyay oo la hadlay oo la xiriiray waxa la yiraahdaa quraan wa tanzil min rabbil alamin munazzal gormaana quraanku soo dagay 14 qarni ka hor baa laga joogaa quraanka soo dagay dhowr 40 sano أيونا دوشي كل صدقي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمي نبي أمي آية قرآن كدوشي سلقوا صدقي أمي بالليلي السجون وحما قرو وح الله قرآن ما آخرين كرب الليل
qur'aanku nebiga sifaadka ilaahay uu ku sheegay ee nebiguna uu ku faanuu yidhi naxnu ummatan ummiya annaka waxaan nahay ummad ummiya waxna ma akhrina baa nebigu yidhi waxna ma qorno ummaddaasuu qur-aanku ku soo degay ka warrama qur-aanku waa mucjizo weeyaan